السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta iyo muuqaal cusub haddaad igu cusub tahay channelkan magacaygu waa Kawsar Saciid. halkan waxaan kaga hadalnaa badqabka nafta iyo tarbiyada toosan. soo dhow laga yaabaa qofku inuu isweydiiyo maxay tahay sababta uu ku kalifaysa qofka narsisiga inuu qoys dhisto, inuu reer dhisto, inuu caruur dhalo isagoo ah inuu ognahay inuu yahay qof aan ixtiraam u haynin dadka oo dadka yasa, inuu yahay qofka narsisiga qof xiriirada aan qiimeynin oo agtiisa waxa la waxay ka tahay xiriirada bini'aadamka ay jirin, isagoo ah maaragtay qof aan cid jeclaan karin oo aan la oran karin jacayl ba u geeyay oo aan hayn qof dareemo dadka kale maaragtay xaqooda jacayl ka dareemo ama jacayl siin kara. isagoo ah qofka narsisiga ay qof maaragtay aan dadka la wadaagin afkaarta ama aan maaragtay wax la sheer galin, waayo wuxuu arkaa dadku inay maangaab yihiin aanay una qalmin in maskax lala wadaago ama wax la weydiiyo. waayo wuxuu soo haystaa ruuxa narsisiga ay inuu yahay caqliga kaliya Ilaahay adduunyada ku dul abuuray, marka wuxuu isleeyahay maxaa dadka maangaabka wax ka weydiinaysa. saas awgeed dadka lama wadaagaan, yani go'aamada, afkaarta, aaraada dadka intay la wadaagaan ay dhahaan waxaas maxay kula tahay afkaarta dadka kale inay mar xataa dadka kale boqolkiiba saxayn laga yaabo inay wuxuu arkaan yani inay xataa inay hadaa laga yaabo mararka qaar inuu fikirkaaga qaato laakiin isagu isu nisbeeyo, yani inuu isagu fikirkan iska leeyahay fikirkan fikirkiisa yahay. saawgeed waayo dadka uma arkaan in dadka caqli yeelan kara aan iyaga hayn. marka waxaas oo dhan iyadoo jirto maxaa keenaya ruuxa narsisiga inuu guri dhisto, inuu reer dhisto, inuu caruur dhalo maxaa ku kalifay ayaan maanta halkan ka jawaabeynaa. sababta koowaad waxa weeyaan waa sabab laga yaabo dad badan oo kale oo aan narsisiga xataa in la wadaagaan oo ah sabab iska caqli darra oo inay tahay inay yeeshaan qoys. ma saaxiibadaha way guursadeen, dadka waxay dhigan jirteen way guursadeen, dadka qaraabadahan ee kula jiilka way guursadeen, waxay iska guurso wax laga filaad guursi iska guurso. taas waa sabab keeni karta in guursadaan. sidoo kale maaragtay waxay buuxinayaan filashada bulshada iyo waxyaabaha ay bulshadu ka filanayso iyagoo aan marna ka fakareynin dad guriga muxuu u baahan karaa, qoysku muxuu u baahan yahay, xiriirka qoysku si uu jiro muxuu u baahan yahay, si xiriir qoys waa maxay, si muxuu mudan yahay, si muxuu galaa, muxuu gudaa, waxaasoo dhan they don't care, ma danaynayaan. ujeedkoodu waxa weeyaan kufaan isku qurxi si accessoires iyo maaragtay la isku qurxiyo. qodob kale ayaa jira oo ku kalifa ruuxa narsisiga inuu guursado oo ah inay dadka narsisiinta waxay cabsi aad iyo aad ka qabaan oo cabsi joogta ay ka qabaan waxa la yiraahdo ka tagida, in laga tago oo maaragtay aan lala sii joogin ay cabsi ka qabaan. waana sababaha mar walba keenta in iyagu xidhiidhada jaraan, in iyagu dadka gooyaan, waayo waxay isleeyihiin adiga laga tagin aduu ka sii tag, waxay aaminsan yihiin cidna la wada joogi karin markasta. marka maxay taas keenaysaa in xiriir guur oo sharciyeysan oo aan qofku si yar oo fudud uga dhaqaaqin inay la galaan, waayo dee qofku si fudud kama bixi karo soo dadka kale wax kasta uu sameeyo fulxumadiisa uu si kasta qof u arko way adag tahay inuu xiriirka guurka loo dhameeyo sida loo dhameyn karo xiriirada kale. marka taas waa sabab ku kalifta inay maaragtay inay guursadaan, waayo dabar sharciya baa qofkan ugu xidhan, qofkana inuu ka tago iska adkaanaysa. waayahay soo kale waxay ka helayaan wax la dhahaa narcissistic supply joogta ah ruuxa ay isqabaan, waayo markasta inuu narcissistic supply dadka kale si joogta uga helo ama waxaan la yiraahdo shidaalka narcissisiga inuu si joogta dad kale uga helo waa mid aan adag tahay. laakiin ruuxa ay isqabaan ama ay guriga wada joogaan ama caruurta uu dhalay mar allaala markuu uga baahdaba uu ka helaya. arooska laftiisa iyo kasoo muuqashada maaragtay bulshada dhexdooda habeenka arooska laga soo muuqanayo iyo showgaas iyo hadal hayntaas iyo maaragtay gacan ku fiiqidaas ayaa ah waxa ay u dhintaan dadka narsisiga ay jecel yihiin, waayo iyaga waxa ahmiyad weyn muhiimad siinaysa inay wax muhiim yihiin in iyaga la sheego, in iyaga la yiraahdo waa kuwa in ruuxagooda ay maaragtay hayaan oo leedarkoo dhan iyaga soo hayaan ayaa wax weyn u sameeyay. marka arooska saacadaha yar soconaya wuxuu maaragtay u sameeynayaa baahidii weyneed ee qabeen inuu buuxiyo saacado yar baa noqotay. waxyaabaha kale ee guursadaan waxa kamida ama guri u dhistaan inay sameystaan koob yar oo iyaga oo kala oo maaragtay iyagu iska dhaxarkaan oo ay maaragtay mar walba la weyneeya oo wixii ay rabeen
u sameeyo waa iyagu waxay rabaan dadkoo dhan inay arkaan wax weyn maaragtay dad muhiima marka caruurta ay dhalaan halkaasi u buuxinaysa caruurta yar sidooda waa labadooda waalba waxay u arkaan labada qof hero-ga kaliya tala adduunyada joogay inay iyagu yihiin marka in aragtida ilmaha yar u arkayo wax weyn bay wata marka caruurta yaryariin oo dhan iyagu way soo dhaweystaan dhabtay ku qabsadaan way isla sawiraan meelaha soo dhigdhigaan waayo ilmuhu halkan buu laakiin ilmuhu markuu yara weynaado ee halkii uu rabay uu buuxin waayo dhibaato badan baa ilmahaas u soo kordhay insha Allah marka laga sheekeyn doonaa sidoo kale inta kale jirta waxa weeyaan ilmaha yar waxay u arkaan sharaxaad iyo sidaan sheegnay exwar la isku qurxisto nolosha lagu qurxisto oo lagu dhameystiro muuqaalkii dhameyska tirnaa ay bilaadan ay maartay bulshada kale u gudbinayeen muuqaal fake ay bulshada u gudbiyaan waxaan ahay qof maartay noloshiisa ku najaxay waxaan ahay qof nolosha dhan ku guuleystay marka ma raba in cilad yarna ay jirto ama gaabis yar ama la dhahaa dad saas sameyn leed bay qurux badan leed ma baddoonayaan marka caruurta waxay isticmaalayaan inay wajiga muuqaalkoodii fake ah ee bulshada ay u dirayeen inuu ilmaha yar maartay u dhameystiro waayo bulshooyinku sideedaba way qadariyaan dadka guri dhista ee caruur dhala qiimeyn baa loo hayaa gaara ruuxa narcissistic waxa uu leeyahay baahi waliba waaliya oo ah wax control wax gacanta ku hay wax ciiji marka cid kasta uma ogolaanayso inay maaragtay controlka caburinta ah ay ku hayso cid kaliya taale controlkan caburinta ah ay maaragtay ku qaban kartaa wax weeyaan waa guur saana waa sababaha maaragtay u guursada oo qofka ay isguursadaan ama nin ha noqdo narcissistic ama gabadh ha noqoto narcissistic waa dad controlid badan ma jecla inay maaragtay xabad wax yar ha noqoto maxaa shimbirna ha noqoto ay duusho iyagu maaragtay laga haysan aan amarka laga haysan ama iyagu amarka aanay bixinin taasina markaa waxay tusaysaa inay guursadaan oo qof si joogto ah u xakameeyaan ay helaan astaamahan iyo sababahan iyo sababo kale fara badan ayaa jira oo ruuxa narcissistic uu guursanayo sababahan dad eegtana waxaad arkaysaa inay dhammaantood ku soo ururayaan aniga maxaa ii dana aniga maxaan maartay faa'iido keenaya marnaba aan ujeedkiisu hayn bulshadu maxaa maartay dadka igu hareeraysan ama caruurtayda maxaan u bixin karaa ama maxaa maartay maxaa danta dadka kale ku jirta laakiin isaga ama iyada ay ka daneysanayo qofkan maartay narcissistic hadalkan anigu iskama oran hadalkan waxaan ka soo xigtay Dr. Ramani oo ah doctorad maartay ku takhasustay tiknoolajiyada narcissistic cilada narcissistic oo Mareykanka soo kale YouTube-ka channel ku leh channelkeeda insha Allah linkigeeda dhigaya xagga hoose soo aragtaan muuqaalkan laftiisa linkigiisa haddaad jeceshahay inaad wax badan ka sii ogaatid dadka narcissistic iyo maartay xiriiradooda insha Allah ku soo biir baan ku leeyahay channelka waan soo dhaweynaya dadka cusub iyo dadkii horeba salaamu alaykum